markaa fiirisid maxaan ku idhaahdaa in dalka gudihiisa mararka qaarkood ardayga markuu dabco inuu jaamacaddii barto jaamacado dadka way ka jireen runtii maadooyina way bixi jireen ama faculty way bixi jireen facultyada dhaqaalaha oo kale economicska oo kale and management science facultyada qaarkood sida computer science and information technology waa la bixi jiray laakiin facultyadaas marka waxaa lagu qasbanaa maadaama ay facultyada burburkii kadib waxaan ka hadlayay tahay jaamacada xilligeeda furay 97 98 meelahaas oo kale qiyaastii waxaa lagu qasbanaa in la helo macallimiin dibad in laga keeno isla markaa ardada halkaa joogto in wax barto tusaalaha kale aniga oo kale hadda markaan dhiganayay computer science oo kale waxaa loo keenay macallimiin nooga keenay dalka dibadiisa sida wadanka Hindiya oo kale macallimiinta Hindiya wax noo dhigi jireen runtii ayaga inta badan na soo baray laakiin alxamdulillah hadda markii dambe waxaa la gaaray in isku filnaansho runtii aad u weyn ardadii jaamacaddii ka qalin jebisa waxaa la helayaa iyagoo master ah waxaa la helayaa iyagoo PhD ah marka taasaa marka waxay keentay marka inay si toos iyaga naftirkooda ugu wareegaan ay si toos marka baahidii hore u jirtay ahayd in maada noocaas oo kale wadanka in ay sheegada laga dhigo ama faculty noocaas in la furo ay adkeyd laakiin hadda wixii ka dambeeyay marka aad u sahlan tahay dad badan oo Soomaali ah arday ah aqooniyaan ah ayaa la helayaa runtii oo culumtii computerka ama culumada kale loo baahan yahay dhan kulli wada